muddooyinkii dambe gaar ahaan 2 sano ee ugu dambeysay waxaa aad u soo badanaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee muujinaya dal jacaylka sawirro qurux badanna ka gudbinaya dalka halka sanadadii 2013 ilaa 2015 ay badnaayeen dhalinyarada tahriibta u aada dalalka shisheeye ama ugu yaraan ku hamiya inay dalka ka tahriibaan iyadoo markaasi ay jirtay dhalinyaro kuwa gudaha dalka jooga la soo wadaaga sawirro iyo goobo ay dad kala dhisteen balse taasi ayaa hadda u muuqata inay u soo wareegtay gudaha dalka oo dhalinyarada Soomaaliyeed dalxiis iyo tamashlayn ugu baxaan duleedka magaalada halkaasi oo xitaa ay ku qabsadaan kulamada iyo shirarka lagu qaban jiray hoteelada magaalada tani ayaa hadda noqotay mid sawirro iyo muuqaal wanaagsan ka bixisa gudaha dalka iyo nimcada Ilaahay ku manaystay sanadkan ayaa ah mid wadanku roobsaday taasi ayaana sii xoojisay xiisaha dhalinta u qabto dalxiiska haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada aanu ka hadlayno oo warbaahinta daljir la hadlay ayaa la wadaagay dareenkooda ku aadan in dalkooda ay ku dalxiisaan awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu runtii galabtay halkan waxaa iga muuqataa farxad aad u qurux badan farxadaas waxaan la qaybsanaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinta gobolka Mudug waxaana ku dalxiisanaa beerta daljir runtii tani waxay ka dhigan tahay nimcada iyo barwaaqada oo dalkeena alla ku manaystay aan dhihi karno waa meel aad u qurux badan oo aad ugu fiican dalxiiska iyo indhaha intaba waxaan aad u bogaadinayaa dhalinta Soomaaliyeed in ay dhulkooda ku dalxiisaan soona bandhigaan waxa jirta inta badan dadka inay isku soo sawiraan wadamo shisheeye meel aad u qurux badan inta tagaan runtii tan waxaan dhihi karnaa waa meeshii ugu habooneyd ee lagu soo dalxiisi lahaa laguna soo bandhigi lahaa yacni dalkaaga iyo horumarkiisa iyo nimcada iyo barwaaqada taala run ahaantii galabta halkan dalxiis qurux badan baa ka dhacay miro freesha dalxiis qurux badan qudaar nooc walba leh taas waxaan dhihi karaa wadan walba laga helo laakiin wadanka gaarka u leh oo sida hodanka looga helo waxaan dhihi karaa waa Soomaaliya marka waxaan dhihi lahaa dhalintu aad ha u bogaadiso yacni si ay dalkooda ugu soo dalxiisaan oo u soo bandhigaan dad walba wuxuu soo bandhigaa dalkiisu wuxuu hodan ku yahay marka dalkeenu wuxuu hodan ku yahay ayaan waxaan dhihi karaa galabta ayaan halka ku soo bandhignay aad ayaana u maasatay taasna waxaa noo sahashay warbaahinta daljir beerteeda aad baa maasatay bismillaah magacaygu waa Ali Xuseen Jaamac waxaan ka mid ahaa dhalinyarada gobolka Mudug waxaan soo dalxiisanay galabtay beerta daljir maalmahan waxaa soconayay dalxiis deegaanada gobolka Mudug iyo deegaanada Soomaaliyeed oo dhan runtii waxaan dareemaynaa farxad iyo nabadgelyo iyo reereyn inay jirto in isbedel weyn wadanka ka jiro yacni nabadgelyo la helay lagu dalxiis karo lagu damaashaadi karo aad baan u hambalyeynaya dhalinyaro meel kasta joogaan in wadanka quruxdiisa iyo muujiyaan oo dalxiisaan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana maxamed magacaygu waa Deeq Maxamed Saahid ka mid ah dhalinyarta gobolka Mudug alxamdulillahi rabbil caalamiin baan leenahay marka koobaad ilaah baa mahad iskale maanta waxaan ku dalxiisaynaa galabtay banaanka magaalada gaar ahaan beerta daljir runtii maalmahan ilaa intii ciidda ka dambeysay waxaa socday damaashaad ilaah baa mahad iskale noo suurageliyey inuu mataqaanaa nabadgeliyo nagu siiyo ciidan barwaaqo iyo roob nagu siiyo alxamdulillahi rabbil caalamiin anoo taa ka faa'iideysanaya waxaan rabaa inaan halkan uga diro baaq dhalinyarta Soomaaliyeed ee isku soo sawirayo guryo iyo wadan mataqaanaa kale oo dad kale leeyahay waxaan leeyahay waxaanoo nimco aan maanta halkan waxa weeye dhalinyartan ku dalxiisaysay miro hadda soo go'ay waxaan ku yiri qara freesha intaasba midna halka laga mehelaan leenahay dalkiina hooyo waa nabad oo ku soo noqon kartaan waana nugula dalxiisi kartaan waa mahadsantiin bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cumar Maxamed Xirsi kamid ah galabta dhalinyarada ku damaashadaysa beerta daljir inta ciidda ka dambeysay maalmahan dhalinyaradu iyo dalxiisku aad buu badan yahay marka waa barwaaqo iyo guulo la gaaray waxa sahlayna waxa weeyaan roobkii Ilaahay oo noo daay nabadda iyo barwaaqada oo kala qayb ka ah marka aad baa u hambalyeynaya dhalinyarada oo aad ugu dalxiisaysa
meelaha magaalooyinka banaankooda iyo meelaha aadka u quruxda badan soo bandhigaya beerta daljirna waxay ka mid tahay meelahaas aadka u quruxda badan oo in lagu dalxiiso mudan dhalinyarada galabta ku dalxiisayso gobolka Mudug. Dhanka kale Maxamed Cabdicasiis Cabdulqaadir oo ku magac dheer Darwiish waa mid ka mid ah dhalinyarada ku sugan dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Turkiga. Maxamed waxa uu ka marqaati kacayaa in uu ka maqan yahay dal bilic iyo nimco Ilaahay ku manaystay waxa uuna ku rajo weyn yahay in uu dib ugu soo laabto xilliyada soo aadan. Qadka telefoonka ayuu igu waramay isagoo ku sugan Istanbul. wadhawahay saaxiib qaali wariye Cabdinaasir Sheekay magacaygu waa Maxamed Cabdicasiis Cabdulqaadir Darwiish waxaan ku suganahay dalka Turkiga dhageystayaasha radio Daljir iyo shaqaalaheedana waa salaamaya. Aad baad u mahadsan tahay Darwiish midooyinkii dambe dalka Soomaaliya waxa ku soo badanayay dhalinyaro badan oo soo bandhigaysa quruxda iyo bilicda dalka. Haddaba adigu dalka shisheeyaad joogtaa maxaa ku baxa markii aad aragto? wallahi niyo waxa noo baxa oo mar walba anaga qalbigayga qaboojiyo waxa weeye dalkeena waxa laga yaabaa dadka shisheeyaha inay sawir xun ka aaminsan yihiin laakiin markii bilicda wadankeena ay soo bandhigaan dhalinyarada gudaha jamhuuriyadda ku sugan waxay noo noqdaan wax aanu dadka kale ugu faano waxa weeye aanu tusno bilicda wadankeena gobonimada uu leeyahay quruxda uu leeyahay waxaad ogaataa wadamadan hadda shisheeye kan aan joogo iyo wadamada kaleba dalxiiska ayaga ayaa abuur kharash ba uga baxa laakiin Soomaaliya Ilaahay wuxuu siiyay waxa weeyaan qurux dabiici ayuu siiyay beeraha iyo xadiiqooyinka iyo laagaha iyo buuraha iyo gabiyada ay isku soo sawirayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee quruxda wadanka Soomaalida ay soo bandhigayaan waa kuwa Ilaahay diyaariyay oo shacabka Soomaalidu kharashna uga bixin waqtina uga bixin hadda u soo sugnaanaysa waana waxaan ku faraxsanahay. Waan gartay ilaa 2015 ilaa 2016 waxa badneed dhalinyarada dibadda joogta ee sawirada ku soo galaysa dalal aysan lahayn balse haatan waxay u wareegtay dhanka Soomaaliga gudaheeda oo waxa soo baxday dhalinyaro gobolada dalka ka sameynaysa sawir qurux badan ka gudbinaysa bal arrinkaasi adigu sidee u aragtaa? maasha Allah runtii waa maalinba tilaabo ayaa hore loo qaadaya waa horumar iyo wanaag ay ku dhiiradeen dhalinyarada Soomaaliyeed sidii marka horeba aan ku xusay dhalinyarada dibadda joogta sawirada ay soo bandhigayaan waa sawirro kharash ku baxay dhul kharash ku baxay dhul la diyaariyay laakiin qodobka muhiimka oo karaamada shacbigeena oo dalkeena oo wax weeye in inagu natural tourism aynu leenahay waxa afka qalad ugu yiraahdo dalxiis dabiici inaynu leenahay oo xilli kasta anytime kasta la heli karo oo xadiiqada iyo waxa weeye laagta iyo buurta iyo balliga ay isku sawirayaan dhalinyarada Soomaaliyeed uu yahay mid Ilaahay sameeyay oo artificial ahayn waxa weeye gacanta lagu sameeyay oo xilli kasta go'i karo oo xilli kasta la waayi karo marka waxa weeye waxaan leenahay ninka idaha sii dhowreeyay oo dhaqasha waa geel ninkan waxa weeye qurbaha beerta la diyaariyay oo waqtigu ku baxay sawirka ku soo galaya waxa ka fiican midatan waxa weeyaan ad xilli kasta heli kadib oo weyneen sameeyay oo Ilaahayna ku deeqay inaad timaado dhalinyarada wadankana aad baa runtii u bogaadinaya dalkaaga quruxdiisu waa astaanta ad wadamada kala ku leedahay markasta oo jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dhulalka Soomaaliyeed ay qurxoon yihiin ayaad adiguna qurxoon tahay dalkan hadda anigu aan joogo waxaan ku joogaa karaamada gudaha ka jira maalintii Soomaaliya wax ka jiraan ambi darri ka jiro abaari ka jiro foolxumo ka jiro anna waan ku foolxumahay kan aan joogo maalintii aad sawirada soo bandhigaysaan oo barwaaqada iyo baraaraha iyo quruxda ay wax weyn ay ka jiro gudaha jamhuuriyadda aniguna kalsooni iyo waxaan haystaa waxaan ummadda kale ugu faani karo u soo bandhigi karo aan waxa weeye u sheegi karo waxa weeye in waxa weeye dal iyo karaamo aan leeyahay xataa tan haddii ay dhibaato iga qabsato marka waa wax aad iyo aad bogaadin u mudan amaantaasna waxa mudan dhalinyarada gudaha ayaan oran karaa oo wax soo fahmay ayaamahan dambe oo dalka waxa weeye dib u dhiskiisa iyo gobonimadiisa ayagu lambar 1 ka ah. waan gartay ka Maxamed ahaan ma ku rajaweyntaa inaad dalka dib ugu soo laabato aad qayb ka noqoto dhalinyarada dunida ka gada bilicda dalka? maxaa dhacayde oo ma ku dhawaada waxaanu leenahay allow yaa dalkii taga badda deexeeda iyo dhammaan waxa weeye ku dalxiisa gii marka anagu waa soo noqonaynaa dalkeeni waa imaanaynaa waxa weeye waxyaalaha noo soo celinaya ay ka mid tahay waxa aad soo bandhigaysaan waxyaalaha nagu dhiirigelinaya inaanu deegaankeeni ku soo noqono inaanu ka fikirno beerashadiisii inaanu ka fikirno waxgelintiisii maxaa wacay waxaanu aragnay oo aan joognaa
dal waxa weeye buur ama balli cad oo aan geed lahayn oo wax laga dhigay green overgreen laga dhigay oo beer laga sameeyay marka laagtaan iska duldulaysa iska soconaysa iyo balligan ilaahay sameeyay waxa weeye iska waran iyo xareedan waxa weeye roob wada doobinayo aan ilaahay ii sameeyay oo aan kharash iiga baxayn inaan midda kharashka la geliyay oo anigu aan kharashka ku galay aan ka doorbido aqliga saliimka aan sheegay marka waa soo noqonana waanu soo soconaa dalkeenina waxa weeye ilaahay alxamdulillahi rabbil caalamiin gobonimo badan ayaa ka muuqata marka dhiirigelin bay noo tahay sawirada waxaan soo celinayay noo tahay dhalinyarada ee Soomaaliyeed qurbaha jiraan waxaan baa ugu diraya waxaad ku qurxoon tahay dalkaaga dalka lagu noqdo dadka la joogtaan dalkiina ka gada ay isku bahdilinina u sheeg dalkaaga quruxdiisa si kastaba ha ahaatee waxaa hadda muuqata in uu meesha ka maqan yahay doorkii wasaaradda ku magacaaban deegaanka daaqa iyo dalxiiska heer federaal iyo heer Puntland Cabdinaasir Jeekay warbaahinta Daljir xarunta gobolka Mudug Gaalkacyo ku soo dhawow macmiil naqshada cusub ee application-ka waafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran haddaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam ugu horreyn soo fur application-ka waafi kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga dooro load from kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid nambar sireedka akoonkaaga iyo faahfaahinta sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bangiga dooro withdraw kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sireedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama akoon oo ah akoonkaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya Sandi kadibna dooro kaaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid kadibna geli nambar sireedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambaynna taabo confirm si aad lacagta u dirtid waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka moobilkaaga